بارك الله فيكم شيخنا فاضل إلهي ميزانك حسناتك كسار وسيدة ونكسن سؤال سؤال جبت شيخنا فاضل سؤال نوو حكتو waxay ka timid gabar walaalaha ka mid ah waa gabar walaasheen ah oo qolka ku xiran walaashan way ku salaamaysaa salaanka bacdi waxay leedahay sheekhuna faadil waxaan ahay gabar oo hadda rabto inay guursato wiil baa adeerkay baray wiilkaasna yani adeerkayga markuu ibarayay waa wiil uu iga soo hubiyey diintiisa iyo akhlaaqdiisa waxay leedahay walaashan waxaan ahay gabar aad u dayar waxaan ahay gabar diinta lagu soo barbaariyay haddana waxaan ahay gabar ma sha Allah quraanka barto ciyaalka iyo dacwada ku dhex jirto wiilkana waa wiil diintiisa aad u sareyso labadeenna guur baan ku heshiinay guurkiina waan ku wada heshiinay meherkiina waa dhacay marka waxay leedahay walaashan sheekhuna faadil arrin baa meeshii soo gashay wiilka aan rabo inaan iskuursano hooyadiis oo xoogaha diinta aanan ku wanaagsaneyn baa arrin la timid oo rabto aniga iyo wiilka inay nagu qasabto hooyadu waxay taagan tahay bay leedahay guurka arooska dhacayo fanaanin baan kireeyay bay tiri dad baa ilaa Australia ilaa Canada aan soo cazimay arooskana waxaan rabaa in laga dhigo aroos oo fanaanin iyo adduun ay joogaan gabadhana inay soo xirato taash dadka soo hor fariisata arrintii baan aniga aan wiilkii kala tashtay wiilkiina wuxuu igu yiri anigu diyaar uma yahay arrintan laakiin hooyo waan la hadlaynaa biidnillah marka wuxuu isku dayay inuu hooyadiis la hadlo laakiin hooyadiis waxay soo istaagtay maya arrintaas way dhacaysaa wayna soconaysaa haddaad diidid gabadhan ay rabin gabar arrintan rabto ayaan ku keenayaa marka ala kulli xaal waxay leedahay gabadhan waalidkeygina way la socdaan arrinta mana ogolo wiilkana ma ogolo heer waxaa la gaaray hataa maamada in laga dhaadhicsiyo cid walba ay la hadasho laakiin maamada waxay soo istaagan tahay maya arrintan way dhacaysaa marka waxay leedahay sheekh guurkiina meherkiina waa dhacay anigana waxaan ahay qof ahludiin wiilkana waa ahludiin laakiin hooyadii baa aqoon dheer naga haysataa maxaan ugu la talin lahayd maadaama hooyadii ay taagan tahay arrintan iyada soo abaabushtay fanaanintan iyo arrimahan anagana waxaan ku dhahnay yeeli mayno meeshaasna imaani mayno mana ogolin iyadana waxay taagantahay waa inaa meesha imaataa oo taash loo soo xiraa gabadha marka waxay leedahay sheekh arrin baa igu taagan inoona soo duceey walaashana wayna dhegeysanaysaa sheekhuna faadil falyatafadal mashkuuran wamaajuuran بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعد gabadhani qaab wanaagsan oo aad aan ugu farxay bay hadalka u soo tartiibisay hadallada ay soo jiitay waxaa ka mid ah adeerkay ayaa i baray wiil wanaagsan inta badan dhalinyarada meelahan ku korta in qof la baro oo qof kale oo weliba waalida uu baro in yar baaba aqbashaba marka gabadhaasi waxaad moodaa runtii hadal qiimo badan weeye adeerkaana asagana waa adeer runtii jazaahu allahu khayran la jecel gabadhiisa wax wanaagsan wiilkaa wanaagsan ay gabadhu ku tilmaantay inuu wanaagsan yahay ayadu ay leedahay weliba gabar yar baan ahay ahlu dacwa wiilkuna waa ahlu dacwa multazim weeye intaasoo dhan waa waxa laysku doorto waana dhiiri gelinaynaa qaabka in wax lagu doorto oo sidaa wax loo doorto oo diin iyo sharaf laysku doorto waxaase cajiiba soomaalidu waxay dhahdaa geel curadiisii durdurisay aarankiisii maxaad mooday geela hasha weyn koorta loo xidho haddayna deganayn oo geela ayna daajinaynin oo geela aynan kolba dhinac u hogaaminaynin oo ayadu ay orodo ay durduriso geeli yaryaraana wuu ka sii darayaa waxay kaloo carabtu dhahdaa idaa kaana rabu lbeyti daariban fashiimatu ahli lbeyti raqsu haddii ay ninkii iyo islaantii isqabeen waaweynaa hadday durbaan iyo soo qaataan kaban soo qaataan haddii carruurtii soo qabka ciyaar ma samaynayaan waxaa un looga jeedaa xikamkan middan soomaaliga iyo middan carabiga aba waxaa loola jeedaa waxaa cajiiba dadkii waaweynaa
ee aakhare u sii dhowaa ee da'dii adduunkii soo qaatay adduunyadoodii soo qaatay goortii ay ilaahay u tasbiixsan lahaayeen goortii ay dunuubtii ay soo galeenee horay ay ilaahay oga noqon lahayen tabaaraka wa tacaala oo ay ka shallaytoon lahaayeen goorta meesha ay joogaan ay eegi lahaayeen oo waddankoodii ay ka soo qaxeen oo ay qurbo ku yihiin oo ay fuqaro yihiin oo qoysaskoodii iyo reerahoodii laga yaaba inay gaajo u baktinayaan xaaladda noocaasa dhallinyaradu waddamada ay ku dhex jiraan kufriga ay ku dhex jiraan iyo gaalnimada ay ku dhex jiraan iyo macsida ay ku dhex jiraan iyo waxa dhinacyadooda ah marka la eegaayo dadkii la rabay in lagu daydo oo ay dhahaan maya sidaa ma aha oo in la celceliye ahayd dhallinyarada in la celceliye ahayd laakiin qof weyn oo maanta da'ah oo carruurtiisi la qabo ama la guursaday in la celceliyo oo macsi laga celceliyo oo gabadh iyadaba dhahaysa waan yarahay 17 jiro 18 jiriyo wax 20 sano laga yaabo xuduudeedu inay tahay yacni inay ku celceliso hooyadaasay horta intaasaa ceeb kugu filan ilaahay agtiisa intaasaa ceeb kugu filan diinta xaggeedana intaasaa dhaleecayn kugu filan mu'miniinta waxgaradka ana yacni intaasaa ceeb kugu filan inay arrintaa iyada ay maqlaan malaa'igta garbaha kaa saaran iyo kuwa wax kaa qoraya lacagta aad bixinayso yaa leh aad ku bixinayso waxa shayga xaaraamta ah midda kale ma run baa inaad ilmahaaga jeceshahay ilaahay baan kugu dhaariyey hooyada arrinkaa laga soo sheegayay warkan caawa hadduu gaadho ama ay haddaba hadday dhegaysanaysaa bal hooyadaa su'aal baan ku weydiinayaa si daacad ah oo alla ka cabsi ah oo aan innaba warwareeg lahayn isku day inaad su'aasha aad ka jawaabto qabriga markii lagu geliyo kafan cadna lagugu xidho barkinna ciidda lagaaga dhigo dadkii ku jeclaana ay kaa kala dareeraan munkar iyo nakiirna ay kugu soo baxaan su'aalana ay ku weydiiyaan haddii lagu yidhaahdo qof weyn baad ahayde muslimad baad ahayde maxaa kugu qasbay waxan oo macsi ah inaad samaysahay diyaar ma u tahay inaad dhahdo nacam arrintaa waan sameeye wayna dhacaysaa sida haddaad ugu madax adag tahay midda kale ma run baa inaad gabadhaada jeceshahay ma run baa inaad wiilkaaga jeceshahay hadday run kaa tahay inaad jeceshahay oo inay wada joogaan ama ay wada jiraan ama isku waaraan hadday run kaa tahay inaad jeceshahay ilaahay baan kugu dhaariyey maxaad macsi oogu bilaabaysaa guriga maxaad caro alla oogu bilaabaysaa guriga maxaad ciqaab alla oogu bilaabaysaa guriga soo aakhare kama baqaysid soo ilaahay kama baqaysid soo ma doonaysid reerkan inay nabad sii noqdaan oo ay isku waaraan meeqa ayaa noocanna soo martay intii noocaa loo sameeyey durbo kala cararay oo durbo kala faniinay oo durbo kala yaacay meeqa ayaana soo martay hooyadaa waxaan leeyahay ka daa carruurta waxa aad doonaysana u samayso hoballana loogama baahna meeshan muusigna loogama baahno shukri allaa looga baahan yahay bal ereygaa dhagahagaa ku dhaco shukri allaa looga baahan yahay xamdi allah ayaa looga baahan yahay nicmadan in ilaahay lagu celiyo waxaa cajiiba wadaadku markuu meerinaya wuxuu dhihi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم أو يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أو الدم دافك إله ويدي سنينه ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أو كأمر قاد الشيء سو كلمة الله سو كلمة الله لسكو مبرنينيو سو قرآن ما وحل اسكو قورينيو سو حديث ما وحل اسكو قورينيو والإلهي أنكبهن إلهي أنكبهن انت وحان لي هذا الككلل waxaan leeyahay waalidka ama gabadha xaggeeda ha ka socoto ama wiilka xaggiisa ha ka socotee waalidka weliba dumarka ah war dumarow waxaad naarta ugu badateen ee nebi moxamed idinku sheegay sala allahu alay slam waa noocan oo kale islaan 70 jira oo 60 jira oo 50 jir ah oo u oloraynaysa inay gabadhaadii inta ay ku soo daashay ama wiilkeeda intaa soo korinaysay inay guri xumaan ugu dhisto mawaalibaa jirta mise miyar qabaa jira gabadha waxaan leeyahay iyo wiilka cuquuq idinkuma aha haddaad khilaaftaan
oo dhahdaan annagu maba imaanayno ma la isku kiin meeriy haa maba rabnaba aniga taladayda hadday tahay maba rabnaba aroos ba dhaha khalaas waa dhammaatay maba rabnaba haddiiba mar la iskugu kiin meeriyey labadiinna khalaas guri isgeysta ama hotel dega waalidkiinana ixsaan u sameeya haba yeelina meeshan ha soo fadhiisana hadday hooyo kasta nooca lagu samayn lahaa hooyooyin badan oon moodo inay khaatimo xumo ku socoto ilaahay khaatimada ha noo wanaajiye idin fiican bay yeelan lahaayeen ha ku ateecina macsida ilaahi makhluuq laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq marna ha ku ateecina hadday awooddiinnu ay tahay inaad idinku isheli kartaan idinku ishela mar haddii la isku kiinmeeriyey alxamdulilah cid idin qasbaysa male hadday ayagu islaamaha u yeeranhayaan ay dad u yeeranayaan oo ayaga howl u taalla wey idinkusa ha tegina gurigiinna jooga ilaahay caabuda ayagana wanaag iyo ixsaan u sameeya ilaahayna waxaan ka baryaa tabaaraka wa tacaala inuu guryaheenna noo dhiso guryaheennana noo hagaajiyo hooyooyinkeennana noo soo hanuuniyo sharta ay mar walba la socdaan ee ay aroosyada kula socdaan haweenkii waxaa laga keri leeyahay war iska daaya daansiga habeenkii bal adu ma aragtay reer baa la dhisayaa 6 saacu habeennimo kowdii habeennimaa lasoo labisan baca ayaa lagu soo guranayaa maxaa la yidhahdaa duruuc dubay laga keenay oo qaali ah oo laga soo bixiyey $200 laga soo bixiyey iyo ka badanba iyo intaasoo dhalaabaa lasoo qaadanayaa xijaab bay qabtaa hadday doonto ina shareer bay qabtaa hadday doonto maxaa la yidhaha iikeen noocan weeye waxyaalaha ghariibkeen la yaabnay war aroos waxaa la arkay 3 habeennimo iyo 4 habeennimo iyo 5 subaxnimo bal adu dad guryahooda ka maqan oo tumanaya oo boodaya oo muusig ku mashquulsan waxaase wax la sax ah war noocaa sax ma aha noocaasi wax sax ah ma aha sidaa daraaddeed waxaasi daansi baa loo yaqaan ma aha maxaa la yidhaha aroos yaan laga qaybgelin kuwaasoo kale war barqin ku soo kala dareera 11 hadday gaadho gabadh walba gurigeeda ha timaado maxaad ka qabanaysaan saacadda maxaad ka qabanaysaan meelaha war ilaahay ka baqa war qabri baa idin sugaya gabdhow war wallaahi su'aal baa idin sugaysa war su'aal baa idin sugaysa munkar iyo nakiir baa su'aal idin weydiin war qabriga dhexii su'aal baan idinku weydiin war aroosyada aad qaabkan u dhigaysaan war ilaahay oga baqa oo reerana waa ku dumeen reero badan baa ku dumay oo carruuro badan baa ku khasaaray idinkuna waad ku aakhara waayeysaane ha idinku fillaata nicmo alla wey tabaaraka wa tacaala barqinkii baa nabiga xaasaskiisa guryaha loo geyn jiray soo nabiga ma jeclin soo waddadiisi ma rabno inaan qaadno calayhi salaatu wassalaam barqinkii baa loo geyn jiray barqinkii ayaa loo geyn jiray nabiga sala allahu calayh waali wasalam dhaqanka sidana waa dhaqan khatara oo qallafsan oo xun soomaalidu buuna khaas u yahay war arrinta ha la bedelo oo intii qadada la cuno 6 galownimoba haddii haween isu imaanayaan 6 galownimo ninka guriga gabadha ha loo geeyo maxaad ninka uga haysanaysaan gabadha ninka gabadha maxaad uga haysanaysaan nin baa loo meerinayaa duurkii markaasaa caawa beri subax loo geynayaa 2 saac subaxnimo ayadoo fadhiday oo cilaan loo soo mariyey oo timo intaa la jiidayey oo 5 dhar laga bedelay oo ayadoo rafaasan oo 100na lagu daaray oo 100 ummada madka isu daba marayeen ayaa gabadha oo sakaradoo daalan ayaa nin shalay duurkii gabadh loo meeriyey oo negatiinkii ku xiran oo meel ku qallafay ayaa loo geynaya war dulmiga iska daaya dulmiga mana soconayso aakharana su'aal adag baa jirta xoolaha la daadinayo waxa lagu ciyaarayo muusigada la keenayo fanaaniinta war ilaah uga baqa dumar oo intaa waana hadii noqoto waan ku dheeraaday waana kululaaday waayo waxaan ogahay xaqiiqada dhabta ee jirta ee masalada ka jirta wallahu aclam walcilmu cinda allah